waxaan ku soo gudbinayaa 10 naseexo oo ka samaysan dahab waxaadna ka dhigataa qaacidada noloshaada midda koobaad waxaad ahaataa qof mar walba dhanka fiican wax ka eega kana dheerow dadka dhanka xun wax ka eega maxaa yeelay intaad ayaga la jirto waligaaga waxba ma hagaajinaysid midda labaad waxaad iska xirtaa murugooyinkii tagay ee ku soo maray hana noqon mid waqtigiisa oo dhan ku qaata ka shalaynta wixii tagay balse noqon mid qaladyada ka qaata khibrad oo hadhow uga faa'iidaysta mustaqbalkiisa midda saddexaad marka la soo garaaco albaabka qalbigaaga ha u degdegin furitaankiisa oo midka soo garaacaya u sug ilaa uu kaaga caddeeyo dhab ahaanshaha jaceylkiisa midda afaraad ka maaran qof kasta oo aanan qalbigaaga u naxariisan oo aanan ixtiraamin karaamadaada waxaana kaaga digayaa inaad isku dhajiso qofkaasi oo kale midda shanaad qofka aanan akhlaaq lahayn adiga kula dhaqan akhlaaqdaada wanaagsan ee asaga ha ku daysan laga yaabay inaad siiso cashir uusan weligiisa ilaabayn midda lixaad marka aadan jeclayn halka aad joogto halkaasi oo ay joogaan dad maalin ku dhibay si degdeg ah uga bedelo makaankaasi midda toddobaad qofka ku duleeyay adiguna ku ciqaab aamusnaantaada kuna dul-oy salligaaga maxaa yeelay inaad salligaa ku dul-oyso xilliga sujuudda ayaa kaaga khayr badan inaad ku dul-oyso barkintaada in aad alle khayrkiisa baahidaada u sheegatana waa dullinimo ee iska ilaali midda sideedaad ha isku dayin inaad gaarto qof aanan asaguba awoodin inuu adiga ku soo gaaro yacni kaa hooseeya nafsadaadana ha noqoto mid kugu weyn oo aad karaamayso midda sagaalaad aamin awooddaada ogowna inaad nafsadaada u tahay hormuud qofna ha u ogolaanin qofkuu doono ha ahaadee inuu nafsadaada ku hago midda tobanaad elin kasta oo ku sigatay inay soo daadato aad farxad ku bedeshay waa gacan ku saacidi doonto oo zamanku kuu qarinayo markaad maalin u baahato ayaadna heli doontaa inshaa allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh